midowda musharaxiinta oo soo saaray 5 qodob oo muujinaya in doorasho xor iyo xalaal ah aysan ka dhici doonin dalka Soomaaliya iyo maamulka Hirshabelle oo ka hor yimid hadalkii golaha midowda musharaxiinta mucaaradka aan ku bilownay golaha midowda musharaxiinta ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho oo ay ku qiimeynayeen xaaladda guud ee gaar ahaan habsami u socodka doorashooyinka loo ballansan yahay ayaa soo saaray war-saxaafadeed ay walaac ugu muujiyeen 5 qodob oo ay sheegeen in haddii aan waxba laga bedelin aysan muuqan fafaalo dalka ay uga dhici karto doorasho xor iyo xalaal golahu waxa uu walaac xooggan ka muujiyay in doorashada xor iyo xalaal oo ay ku qabsoonto waqtigii loo asteeyay ay ka dhacdo dalka iyagoo ku saleynaya fafaalooyinka muuqda ee khuseeya arrimaha ugu waaweyn ee ahaa caqabadaha horyaala doorashada dalka kuwaasi oo ay ka mid yihiin maarayn la'aanta ismariwaaga ka jira habraaca doorashada xildhibaanada ka soo jeeda Somaliland kaasi oo abuuraya in laba guddi doorasho ay samaysmaan xaaladda gobolka Gado oo weli aan xal dhinacyada ay ku qancaan laga gaadhin waxaa kaloo ay sidoo kale aan weli xal laga helin caqabadaha siyaasadeed iyo amni ee ka taagan gobolka Hiiraan ee deegaan doorashada Hirshabelle si loo hubiyo inay ka qabsoonto doorasho xor iyo xalaal qodobka afraad ayay ku sheegeen in aan weli dhaqaalihii doorashada meel la saarin waqtigii doorashada la taagan yahay isla markaasina ay wax badan isku cakiran yihiin qodobka shanaad ayay ku sheegeen u diyaargarowgii doorashada xubnaha aqalka sare oo aad u hooseysa taasi oo shaki gelinaysa in jadwalka doorashada lagu dhaqmo golaha midowda musharaxiinta ayaa qoraalka ku sheegay in haddii aan xal degdeg ah laga helin caqabadahani kor ku xusan ay dib u dhac ku keeni karto habsami u socodka doorasho hufan oo loo wada dhan yahay golahu waxa uu ku booriyay xukuumadda iyo madaxda dowlad goboleedyadu inay si degdeg ah wax uga qabtaan caqabadaha hadda taagan kana tababushaystaan kuwa iman kara si dalka looga hirgeliyo doorasho xor iyo xalaal ah oo waqtigeedii ku dhacda ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay midowda musharaxiinta golaha ayaa ugu dambeyntii war-saxaafadeedkooda ku sheegay inuu ka walwalsan yahay faragelinta uu madaxweynaha muddaxileedkiisii dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu weli ku hayo habsami u socodka doorashooyinka dalka dhanka kalena maamulka Hirshabelle ayaa ka hor yimid hadalkii golaha midowda musharaxiinta maamulka Hirshabelle ayaa si cad uga hor yimid qoraal ka soo baxay xubnaha midowda musharaxiinta mucaaradka ee lagu sheegay inaysan suuragal ahayn in doorashada lagu qabto magaalada Beledweyne ee maamulkaasi gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee baarlamaanka Hirshabelle Siraaje Sheekh Isaaq iyo gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo maanta shir jaraa'id ku qabtay Beledweyne ayaa ka hadlay wararka ka soo yeedhaya musharaxiinta iyagoo si weyn uga soo horjeesaday Siraajo oo shirka jaraa'id ka hadlayay ayaa shaaca ka qaaday in dana siyaasadeed laga leeyahay warqadda ka soo baxday midowda musharaxiinta wuxuuna tilmaamay in doorashada xildhibaanada ee labada aqal lagu qaban karo gudaha magaalada Beledweyne sidoo kalena waxa uu xusay in hadalka siyaasiyiinta mucaaradka uu qas iyo fowdo horle ka abuurayo deegaanada Hirshabelle sida uu hadalka u dhigay gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha baarlamaanka Hirshabelle oo hadalkiisa sii wata ayaa sidoo kale xusay in Hirshabelle ay raaligelin uga fadhido golaha midowda musharaxiinta mucaaradka dhankiisana gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cali Jeyta Cismaan oo shir jaraa'id ka hadlayay ayaa shaaciyay in midowda musharaxiintu ay u gafeen reer Hiiraan gaar ahaan bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha magaalada Beledweyne